kulankani oo soconaya muddo 4 maalmood isla markaana mowduuciisa uu ahaa islaamku waa diin nabadgelyo mid nasteexa ayaa waxaa ka soo qayb galay gabagabadiisii dad kala duwan kuwaas oo ay waxyaabo fara badan ka faa'iiday mowduucani loo qabtay isla markaana soconaya muddo 4 maalmood ah kulankan ay ka soo qayb galeen culumaa u diin ka kala timid wadamada kala duwan ee caalamka ayaa waxaa kamid ahaa culimadaasi ka soo qayb gashay Sheekh Axmed Qudubi, Sheekh Cabdiraxmaan Suleymaan Bashiir, Sheekh Ismaaciil Deeg iyo sidoo kale culimo kala duwan kuwaas oo ka kala yimid daafaha caalamka. waxaana Sheekh Qudubi uu ka hadlay dadka la gaaleynay isla markaana ay ka muuqanayso calaamada islaamka. ilaahay qofku amaan galiyo qofkii farsaara maxaad u maleyn marka sidaa daraadeed hadda maanta waad ogtihiin waxa wadankeena meel walba ka dhacayo wargaalku salaad badana banaanka loo taagay masaajidka banaankiisa lagu sugi qofkii waxa ma ogaba in la dilaal raba ma ogta wuu iska tukanaya qofkan wuu ducaysanaya iyaguna banaanka u taagan yihiin wargaalku salaad badana way dhacday wadankeena ka dhacdo la hubaa hadda marka fiir gaalku salaad badana ma fafsiri kartaa gaalku salaad badana marka sidaas weeye. sidoo kale waxaa Sheekh Cabdiraxmaan Suleymaan Bashiir oo dhankiisa ka hadlay dadka qaar ee iyagu aaminsan in fikirkooda kaliya uu saxsan yahay fikirka dadka kalena uu qaldan yahay kuwaas oo sheegay in nabiga uu ka hadlay salawaatullaahi calayhi wasalaam. laba waxaa keena tadarruf fikri ah dad inta ay isku tagaan uu yiraahdo wallahi fikradeena fikradaha kale way ka fiican tahay haddaan naku nahay ururka caynkaas ah ururadan kale way munxarifiin oo way khaldan yihiin. kulankan ayaa waxaa markii uu soo idlaaday saxaafadda la hadlay isla markaana ka warbixiyay 4 maalmood uu soconayay waxa ay ka faa'iideen dadkii ka soo qayb galay Cabdullaahi Shariif Cabdiwahaab oo ka tirsan mas'uuliyiinta sarsare ee jamciyadda kulankani soo qaban qaabisay UKZO. xaqiiqdii 4 maalin uu socday barnaamijkan aad ayaa looga faa'iiday shacab badan oo ku dhaqan dalkani Kenya oo meelo kala duwan ka yimid ayaa ka soo qayb qaatay rag iyo dumar sidaad maaragtay aragtaanba runtii anaga waxaanu ku talagalnay ilaa 1500 oo qof inay fadhi hesho laakiin waxaad moodaa mararka qaarkood in uu ku filnaan waayo fadhigii taas ayaa waxay ka daliil tahay marka sida weyn ay runtii shacabka uga faa'iideysteen mu'tamarkani 4 cisho socday. kulankan ay soo qaban qaabiyeen jamciyadda UKZO ayaa waxa uu soconayay muddo 4 maalmood iyadoo ay ka faa'iideysteen dhammaan dadkii ka soo qayb galay waxaana kulankani soo camaray isla markaana muxaadarooyin fara badan ka jeediyay wadaad fara badan kuwaas oo ka kala yimid daafaha caalamka iyadoona inta badan dadka ka faa'iideystay kulankani oo ahaa dadka ku dhaqan xaafadda Islii. Cabdirasaaq Miro Dhoore, Hon Cable TV, Nairobi, Kenya.